war qoraal ah yay soo saareen warka qoraalka waxaa soo saaray oo lagu soo qoray barta Facebook ay ku leeyihiin ciidanka difaaca qaranka Itoobiya oo tigta buluuguna ay saaranta warkaasi war markii dhanac laga fiiriyo anigu aan u dhigi karo in uu yahay kii ummadda Soomaaliyeed midayn lahaa uu yahay kii wajiga dhabta ah ee Itoobiya ay inoo haysay ina tusay waxaa la xaqiijiyay in ciidamo fara badan lagu kordhiyay halkaas waxay xuseen in argagixisadu ay qaadatay qorshe ah argagixisada ma garanaysaa waa deegaanka Soomaalida baa Mustafa Cagjar shaydaankeena ku yaal in argagixisadu ay qaadatay qaar baa ka falcelinaya waxay lahaayeen war goorma al-shabaab noqonay أنا أشيء كده أنا مركز شباب نقدين إن أرجع حسده أي قاعدة قرشة قال لا سي دع كوفس إياني كتربان كسو جليان إثيوبيا عندما إثيوبيا وحي شاقين أتاجيهين بربورين تعدو جاسي وأي عدو جاسي وعدد كقلبات كجبل كسيتي كنول استفاعي عن فرتنا أي دجالميين أرجع حسده ومن مصطفى عكشر إلى يقف كصغير كأ ديجان كصومالي ده كنول وركن وعديه waxa argagixisadiihi waa ninka ciise aan ruufo ku dhashay ee markii la xasuuqayay ee 600 qof la dilayay ay ciidamada Itoobiya daawanayeen anfar waa laga adkaaday intaasoo magaalooyin baa laga qabsaday intaasoo saldhig baa laga qabsaday ciidankoodii waa la burburiyay wax tabaroo anfar ku hadhay ma jirto aan dhuuf iyo cadayti iyo garbaciisa Soomaalidu dhulkoodii laga soo kaxeeyay markay ay aragtay Itoobiya inay u socoto waxa la yiraahdaa inuu difaacna shacabka anfarta ee Itoobiyaanka aan ka difaacna argagixisada Soomaalida laamigii aan dhuuf dhexmarayay ma garan yay hareeraha ka ilaalinayaan laba saf oo dhaadheer intay galeen sidii iyadoo Soomaalidu laamigan la laaban doonto oo ay xadi doonto oo la aadi doonto jigjiga يا لامي لا إلى يا لبا سافر دير وعيدا هو حارك بصص أنتي كدقين سفن أنا فرح ما عيسى يا ما أنا صومالي يسر أمو سنجرين أبدكي يا هذه لبطة وان بحن لها ميري وعمل سيدا ربطها إيجا جوا حيس هاي تكرنا oo aan dareemayo haddaan anigu maanta aan awood haystana aan yeeli lahaa samayn lahaa midina waa mid aanan horeynin waa mid aynan horeynin ee ina hortaala ciidanka Itoobiya talada waa tan yeeli lahaa tan hadda aan wado ciidanka Itoobiya isbeer ma wataan ee ku dhufta sanka gali barta ay taagan yihiin kaga bilaaba والله وأرمى الله ببلود أما صدق بلود مالها اللي سوى عيد عيدي ما أنا هيان تبرع يكون استاجان هوبك وين هيستان أرد بك جفر نيسان بإذن الله أنت كن ويل ماشى إنك قد ما تي كجمع صلابان كرا أم حارد دورا لها تكره وسال أركسين وعيد عيد سني قال وساك أنت كل فتان عديتي عن روفت أنت استاجتان هذه اللي يصور قد يدك حبورك قبل لعب وحريها عيدك إثيوبيا يحن نقطة هيسل الرقمته وتعيين لها هذا انتبرها يساك تعيين نورين يعني هرتال وحوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر هذا برنامج كان بكذا القضاء كم واحد نكوي جدونا حقوق عصب ودق وكي من يقلبات كقبل كستي إسلام مركز سنة war la yaab leh oo ka soo baxay ciidamada militariga Itoobiya ayaan idin la wadaagi doonaa shalay waxaanu idin soo gudbinay in ciidamada militariga Itoobiya ay codsi u soo gudbiyeen ciidanka deegaanka Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka dagaalamaya galbeedka City isla markaasina baacsaday canfarta gardarrada iyo duulimaadka ku soo qaaday deegaanka Soomaalida haddaba codsigaasi oo aan u arkaynay inuu ahaa mid shirqool uu ka dambeeyo maxaa ka soo baxay ciidamada militariga Itoobiya qodobkan
ayaanu idinkula wadaagi doonaa faahfaahintiisa iyo warkaasi la yaab kale ee kasoo baxay ciidamada militariga Ethiopia waxa ila jooga saaxiibkay Guuled Ibrahim Alifle oo bal qodobkana wax ka weydiin doona Guuled soo dhawo marka hore aad baad ula socotay xogaha galbeedka City nimankii militariga shalay waa kaynu nidhi shirqool baa ka dambeeyay codsiga ay soo gudbiyeen maxaa ka soo baxay aad baad mahadsan tahay saaxiibkay Nuur aan ku horeyno shirqoolkii shalay iyo waxa ka soo baxay shalay barnaamijkeenu waa inay ku tabinay ciidanka federaalka ee dalka Ethiopia ay codsadeen in loo kaadiyo oo magaalada aan lagu dhex dagaalamin isla markaasina dadka shacabka ah aan gudihiisa lagu dagaalamin ay iyagu ballan qaadeen inay canfarta ka saarayaan magaalada tii wada hadaladii shalay waa la wada fadhiistay waana la isla fahmi waayay waxaase inta u wehelisay ciidanka Ethiopia khiyaanadan maanta soo shaac baxday maxaan ku idhaahdaa ay la shir yimaadeen nimankii laga sugayay inay canfarta saaraan waxay keensadeen gurmad hor leh ciidamo fara badan baa basas lagu soo daabulay oo Haraargey iyo meelo kale laga soo daabulay kadibna waxaa la keenay deegaanka Cundhuuf ciidamadaasi hubka noocyadiisa kala duwan ee ku hubaysnaayeen oo ay wateen waxayna ahaayeen niman dagaal u socda xalay markii la joogo ee la yaabay la leeyahay war waa maxay ciidan waxbaan saaraynaa iyo ciidamadan maxay ahaayeen tan la hayo bay war soo saareen ciidanka Ethiopia war qoraal ay soo saareen warka qoraalka waxa soo saaray oo lagu soo qoray barta Facebook ay ku leeyihiin ciidanka difaaca qaranka Ethiopia oo tigta buluuguna ay saaranta warkaasi war markii dhinac laga fiiriyo anigu aan u dhigi karo in uu yahay kii ummadda Soomaaliyeed midayn lahaa uu yahay kii wajiga dhabta ah ee Ethiopia ay inoo haysay ina tusay kii warkaas dawladda dhexe ee Ethiopia ciidankeeda federaalka ka soo baxay uu yahay xaqiijinayay waxa aynu ku adimaynay labada sanadood ee aynu sheegaynay ee ahayd in aysan meeshan u canfar inagula dagaalamaynin ee dawladda dhexe ee Ethiopia inagula dagaalamayso waataynu soo gudbinay cadaymihii ciidanka federaalka oo direyska laga dhigay loona xidhay ciidankii canfarta direyskoodii oo dagaalka ku jiray waa kaynu ku celcelinaynay Soomaalida waxaa la dhaafinayaa jidkan Djibouti ka yimaada ee Ethiopia qoodiya ee magaalada Cundhuuf mara ee laamiga ah yaa Soomaalida la dhaafinayaa mana aha qorshe ay canfar wadatay waa ku Ethiopia oo dhan ay wadato waa kan ku celcelinaynay warka ka soo baxay militariga Ethiopia sida uu u qoraa waa si cajiib waa si marxaati furaysa waxa hadda aan ka sheekeynayo oo dhan waxay yiraahdeen waxay dhahay militariga Ethiopia waxay xaqiijinayaan in bariga Ethiopia ciidamo hor leh aan geynay waxayna xuseen in argagixisadu ay qorshe u qaadatay in aagaasi qalalaase dhac kufsi iyo kootarbaanba ah ay ka samayso ciidamada Ethiopia waxay xaqiijinayaan in ciidamo hor leh loo daabulay bariga Ethiopia waa canfarta iyo Soomaalida meesha iska galaan ee Cundhuuf ee hadda deegaankeena lagu dagaalamay waxaa la xaqiijiyay in ciidamo fara badan lagu kordhiyay halkaas waxay xuseen in argagixisadu ay qaadatay qorshe ah argagixisada ma garanaysaa waa deegaanka Soomaalida Baca Mustafa Cagjar in argagixisadu ay qaadatay qaar baa ka falcelinaya waxay lahaayeen war goorma al-shabaab noqonay أنا أشيء كده أنا شباب نقدين إن أرجع حسده أي قاعدة قرشة قلالاسة دع كوفس إيران كتربان كسو جليان إثيوبيا عندما إثيوبيا وحي شاقين إن أتاجيهين بربورين تعدو جاسي وأي عدو جاسي وعدد كجلبات كجبل كسيتي كنول
isdifaacayay canfartana ay dagaalamayeen argagixisadu waa min Mustafa Cagjar ilaa iyo qof kasta ka saqiirka ah ee deegaanka Soomaalida ku nool cadawga soo duulay ee kootrabaanka waday waa Soomaali waa magaca Soomaaliga warkan arbay soo saareen ciidamada militariga boqol jooga wasaaradda difaaca ciidanka beejkoodii tigto saaray ya ka soo xiganayna ila kuwa xagga jooga warkay soo qoraan marka ma bariga Itoobiya dhihi lahaayeen mise koonfur galbeed bay dhihi lahaayeen waxba warkan waa cad yahay waxa argagixisadii waa ninka ciise ee Candhuufo ku dhashay ee markii la xasuuqayay ee 600 oo qof la dilayay ay ciidamada Itoobiya daawanayeen waxaan hadda socdaay waa difaac la difaacayo canfarta tabarda raysay ee darbaaxooyinka xunxun isaga dambeeyeen ee la iyadoo la caydinayo loogu galiyay kaamamka ay amxaaradu deganeed canfarra ma ahayn maca amxaarada kaamamka laftirkeeda qaybteedii waaweyneed ay joogto yaa qaybteedii kalena halkan ka dagaalamaysa oo soo dirta laba arrimood baan rabaa inaan ku tuso aan dadka Soomaaliyeedna aan la wadaagno markii ay dhibaatadanu dhacaysay ee canfartu ay dadka ciisaha ah ee degmooyinkan ku nool soo barakacinaysay ciidamada federaalka ee Itoobiya way daawanayeen wayna arkayeen iyagoo la xasuuqayo oo 600 oo qof ay dhimatay hal subax yay daawanayeen oo aysan waxba ka qabanin intii baaqiga ahayd ay soo hadhay kaamkooda u soo carartayna uuraaladoodii yay intay ku soo gureen yay dhahan xageen idin geynaa oo deegaanka Soomaalida ay ka geynaa way soo rareen markaas waxay ahayd markay canfartu ay libinta haysatay ee dadkan Soomaaliyeed ee shacabka halka joogay ay dhibaatada u geysanaysay ee xasuuqaysay bal ee ciidamada Itoobiya qayb bay ka ahaayeen maanta arrinta labaad ee raba inaan taa barbar iyo waxa weeye canfar waa laga adkaaday intaasoo magaalooyin baa laga qabsaday intaasoo saldhig baa laga qabsaday ciidankoodii waa la burburiyay wax tabar oo canfar ku hadhay ma jirto Candhuufo iyo Cadayti iyo Garbaciisa Soomaalida dhulkoodii laga soo kaxeeyay markay ay aragtay Itoobiya inay u socoto waxa la yiraahdaa inuu difaacna shacabka canfarta ee Itoobiyaanka aan ka difaacna argagixisada Soomaalida hal arrin baa marka meesha aniga iiga muuqata nuuro halka arrin waxa weeye mid aan guul u arko mid aan leeyahay dadkaygu ha ku baraarugaan shayga aan guusha u arkay ma aha in dhulkeedii talada aan ka dhiibanay dib baan uga iman doona dagaalkan iyo sidoo wajigu yeelan kare laakiin in dhulkeedii aynaan qabsanin guul ma arko oo dhulkeedii inaynu qabsanay ahayd laakiin inaynu wajiga dhabta ah ee Itoobiya aynu maanta aragno hore ma soomeynaa wajiga qaar badan baan ogeyn adigu hadaad ogeyn qaar badan oo ummadda Soomaaliyeed ee hadda ina daawanaysa yaan wajigan dhabta ah ee Itoobiya ogeyn ogaadaan leena argagixisadu waa wiilka Ciise Candhuufo ku dhashay laga hortaagay kootrabaanka soo wada ee lala dagaalamayo ciidamada Itoobiya war saxaafadeedka ka soo saareen waa wiilka deegaankiisa ee canfartu 2 sano 5 sano ka hor ay ka qaadatay ilaa haddana u dagaalamay la hortaagay marka ka Hargeysa jooga iyo ka Jigjiga jooga iyo ka Xamar jooga argagixiso arkan kuwaasi waa baab gooni ah kuwa iyagaaba loo socdaa iyaga toodii magaca Soomaali oo dhan bay u arkaan inuu argagixisay magaca Soomaali waan u soo yar laaban rabaa waxba iigu dhiman oo dagaalka iyo hawshiisa markaan ka hadlayaan u tagi doonaa laakiin gudaha deegaankeena warka maraajayaga ah ee jaajuuska Itoobiya u ahaayo maanta jaaju waxa tahay argagixiso kama dhageysanaya kaasi haduusan iga dhageysanayna ha soo akhriyo page-ka ciidamada militariga Itoobiya ay ku leedahay Facebook ee TikTok saaran tahay ee war saxaafadeedka xalay lagu soo qoray aniga haduuna iga akhrisanayna ha u tago ka ha soo fiiriyo kii maraajayaga ah ee jaajuuska ahayna jaajuusayo argagixisa tahay isku doon baynu saarana kii madaxweynaha ahaa ee dadkan kala qaybiyeeyo adaguna maanta argagixisata kii wasiirka ahaa ee hantida dadka boobayeeyo adaguna argagixisata
hooyada iyo wiilka city ku dhashay ee deegaankoodii difaacanayayna iyana waa argagixiso Ethiopia saasaynu maanta ka nahay wajigeeda dhabta waa ka waxa dhulka inuu haystay Ethiopia ahayd waxa wada waxaa cajiibka meesha ku jira waxa kamid ah ciidamada Ethiopia cusub la keenay laamigii candhuuf dhex marayay ma garan yay hareeraha ka ilaalinayaan laba safoo dhaadheer intay galeen sidii iyadoo Soomaalidu laamigan laaban doonto oo ay xadi doonto oo la aadi doonto jigjiga yaa laamigii la ilaalinaya laba safoo dheer oo ciidanaha waxa arki basas intay ka dageen safan oo laamiga aad moodaysa in la yiri waa la laalaabayaa ilaaliya waxa la inaga ilaalinaya waa jidka waxaan maanta argagaxiso ku noqonay waa in la inaga difaacayo dadka asal Ethiopianka idinkuna aad tihiin dad kale kuwa isku dhadhajinaya Ethiopianimada marka Soomaalidan baraarugsanay ku baraaruga maanta saasad deegaanka kuwa deegaanka inta iga dhaxgelin waxaan rabaa inaan u gudbo maanta Soomaalidan kale ay leedahay Hargeysa iyo Muqdisho joogaan ee matabaan lagu cayrsanaya iyaga laftirkooda iyo doolo celintaas maxay ii sheegi baydhaba loogu gabdha yar yar oo uguba lagu siiyay oo loogu xaflada loogu dhigay ma ku soo bandhigaa sawirradooda inay joogan baan ognahay ma gabdhiyo waxa ma galayna inay joogan baan ma sawirradooda ma ku soo bandhigaa ay soo bandhigeen laakiin inay joogan baan ognahay gabdhuhu waa baab kale moogtahay fiiri dulinimada ay Soomaalidu maanta qaybtay mid afkaaga ku difaaci karta ma meel kasta oo ay Soomaali ku nooshahay Ethiopiaanku waxa ay doonaan bay ka sameeyaan iyaga wax fariin ah kuwa jamhuuriyadda xorta ah wax fariin ah oo fariin u dirmaba ku oran laakiin waxaan ka watay oo aan u dirayo ma jirto fariin u dirmaba ku dhigin laakiin waxaan ka watay macnaha Ethiopia say aragto qofka Soomaaliga ama Jigjiga jooga ama Hargeysa jooga ama Muqdisho jooga argagixiso wada aragtaa maanta Soomaali ciidamada Ethiopia warkooda marka la raaco ما واحد أرجع ما أنت وقوة ديجانك هري قميصنيس كواس أرجع حساب واحد أرجع حساب ما أنت لقوش شيء معها صومالي أردن وضدك قلبك الستي كنا لعيسها يجود هم بدتك ديجانك صومالي ده كنا صومالي ده ويان واحد أرجع حساب قلب كاس وعادي ده قال كان مرة ضينو جانو وجه قربت إثيوبيا tabarteenana aan ognahay maxay inaga gudban maanta waxay nala gudban waa iman doona dawladda dhexe Ethiopia mas'uuliyiin ma ku leedahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia ma laga qadar xilliga soo haya aadan faarax Ibrahim horeyna u soo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii deegaanka horeyna maamulkii hore uga tirsanaa waliba raggii saxiixay ah arrintan ee xogaalka u ahaa maanta وقفك الصومالي جه وقدر يجلس السرية إثيوبيا مركز لقاها الحلال كذا ديان كانوا حكوا عيانا وكيسي إذا بدي إثيوبيا نسير رام بيوباش عليا تدكيسين وضياشي وكذا شيء به يدركي أبوه ودرك الشلي شركة شلي هذا قبته وحكوا عليا سووا مكان ده عندنا أنا فرح معها عيسى يا منعها صومالي يصير أمو سنجرين أبدكي يا آدم فارح آدم فارح وأرم ضلي أو هذا السبب شو فيري دقيسو وحوي له هذا ميس كان فردنا مسك إثيوبيا أرمي ذا لوجو كله جويان فردنا ومسؤول كأوسر رأي قف إسر كصومالي جاه حلك أوسر رأي هيا weligii ba gaaro meesha maanta lagu dagaalamayo waa bartii uu ku dhashay aabihii iyo adeerkii waa kuwa aad sheegaysa siday u hadlayeen maanta dhibaatada in haysatay guuldarrada in haysata macanfarba inooga timid maya miiskii uu aadan faarax fadhiyey bay inooga timid guuldarradani canfartu waxay ku jirtaa laamaha amniga waxay ku jirtaa militariga waxay ku jirtaa meel walba marka ay taladu ku ciirtay ee laga adkaado ee furinta hore ee dagaalka looga adkaado waxay isticmaalaan miiska waxay isticmaalaan xulufadooda iyo saaxiibadooda ay militariga ku dhaxleeyeen iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda aadan faarax haduusan orom dhalay ahayn muxuu u isticmaali la yahay kursigan uu ku fadhiyo
ee saameyntiisa leh muxuu dowladda dhexe uga dhaadhicin la'yahay deegaankani anigu kaan ku dhashay weeye labadaa qowmiyadood ha la isu daayo haddaan la kala qabanaynin iyaga ha iskala qabtaane ha la isu daayo keliya muxuu u istaagi la'yahay haddii in yar oo nasabiyad xitaa ay ku jirto aadan faarax maanta wuxuu dhihi lahaa xilkan idiin haya wakaas soo deegaankaygii maaha waxaan la qaatay waxa argagixisada lagu sheegaya soo dadkaygii ma ah soo anigu argagixiso ma ihi xilidii ma haynayo in yar radhig Soomaaliyeed hadduu ku jiro taasoo dhihi lahaa laakiin kuma jiro waa bilaa damiir maxay soo kordhinaysaa canjeera maxay soo kordhin weyde sharaf iyo qiyam buu yeelan lahaa dadkiisana hiilimaad bay u noqon lahayd Etoobiyana ma aysan sidan ku dhiirateen ma aysan Etoobiya sidan samayseen dhammaan kuwa mas'uuliyiinta inoo ah maca ina cagjarka saaka hadduu yidhaahdo aabiye madaxweyne u horreeyay deegaankiisa casilaa noqonaya ee warqadaadii cidda keensanaysa keenso annaga sidii Falastiin baa naloo haystaaba hadduu yidhaahdo inta ma uusan tallaabo rogeyn Abiy Ahmed waxaan uu samaynayana ma uusan sameeyeen militarigana soo laabta la dhihi lahaa laakiin away anu aad uma eedeynaya Mustafa Cagjar wuu dadaalay isagoo dhagax buur ka yimid isagoo dhagax buur ka yimid iikaadi hadalka daniyo waxaa iga kharibin isagoo oo dhagax buur ka yimid oo madaxweyne deegaanka Soomaalida ka ah yuu naf iyo maalba u huray galbeedka city ha u ahaada madaxweyne laakiin dadkii deegaanka ka soo jeeday ee mas'uuliyadda koobaad lahaa ma ah kan aadan faarax ay oromka waa laynoo bedelay baan odayaasha ciise dib ha ugu noqdaan waa loo bedelay kan aadan faaraxa ee deegaankiisa uu ka soo jeeday la yiri waa argagixiso ee maanta kursiga ku sii fadhiya ee amxaaradu ay canjeerada saaka u gegeynayso waxa Itoobiya u shaqeeyo dhan canjeera ku quraacdaan oo ku qadeeyaan oo ku casheeyaan ma taqaan yaa ku sheegay ku quraacdaan waa la ii sheegay ka saaka canjeera amxaarka ku quraacanayo ku qadeynay ee weli amxaarada hoos fadhiya ee oromka hoos fadhiya waa armo isagay wax ciidanka soo diray oo qaabkee buu soo diri muxuu diri karaa hadduu diri karo wuu ku difaaci lahaa inkastoo uusan damiirba ku jirin marka aadan faarax intaa ha igaga ekaado aw mas'uuliyiinta kale Soomaalida maadan bay ku dhowrayaan mas'uuliyiinta kale waa kuwa nin ruqaasheedii ku ninkeedii ku fadhiyo ma kacdo Soomaalidan maqa aadan faarax baa inoogu sareeyay aad sababana fadhiyay haddii uu canjeerada ka doorbiday iyo aanjida saaka maxaa kaloo ay qaban karaan kuwa kale ee xildhibaanada yaa kaloo meesha inoogu jira waa badan wasiiro badan oo guleeyahay warkan lacagaha loo dhiibtay amaanada oo ilaaliya iyo wax macna lahoba Itoobiya inaga ma aadaan raqamada miiska u garaaci kara inaga ma aadaan meesha marka waxaan jeclahay kuwaana wax badan kama rajaynayno waxay ahayd inay sameeyaan u sheegnay laakiin kama rajaynayno in ay wuxuun qabtaan ma jecelin inaan dadka Soomaaliyeed u muujino inaan guuldarro joogno guul baa joognaa ciidanka iyo maaragtay shacabkuna si geesinimo leh bay deegaankooda u difaacayaan laakiin waxaan ka warramayno waxa weeye warkan la yaab kale ka soo baxay ciidamada Itoobiya laakiin inaga aan la yaab baynu u hayno shalay baan dareemaynay markii ay suurtaga sameeyeen ugu dambeyn maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed iyo maamulka Soomaaliyeed deegaanka Soomaaliyeed runtii dadka deegaanka Soomaaliyeed haddii labadaba waan bixin lahaa midi waa mid sida dhabta iga guuxaysa takarana oo aan dareemayo haddaan anigu maanta aan awood haystana aan yeeli lahaa aan samayn lahaa midina waa mid aanan horaynin waa midda aynaan horaynin ee ina hortaala ta aan samayn lahaa waxaan leeyahay naf bira ma wataan ciidanka Itoobiya federaalka naf bir oo aysan xabadu karin ma wataan nin walibana laba nafood ma wato hal xabay wataan halka xabay ah keegaana dili karta waadna taqaanaan sidaad u gashaan cadowgiina
maanta hadday iyagu cadowgeena dhaheen innaga weligeen bay cadowgeena ahaayeen ciidanka Ethiopia talada waa tan yeeli lahaa tan hadda aan wado ciidanka Ethiopia isbeer ma wataan ee ku dhufta sanka gali barta ay taagan yihiin kaga bilaaba والله وأرام الله ببلود أما صدق بلود مالها اللي سوى عيد عيدية ما أنا هيان تبرع ينكور استاجان هوبك وين هيستان أرد بك كفرنا يسان بإذن الله أنت كن ويل ماشى إنك قد ما تي كجمص الله بنك الرا أم حارد دورا لها تكره وسال أركيسين وعيد عيد سني قال وساك أنت كل فتان عديتي عن روفت أنت استاجتان هذه اللي يصور قد يدك حبورك قبل لعب وحريها عيدك إثيوبيا يحن نقطة حيث للرقمته وتعيين لها هذا انتبرها يا ساك تعيين نورين يعني هرتال وحوي dadka deegaanka Soomaalida dhibaatooyin badan bay ka soo doogsadeen hoggaanka hadda joogayna midnimadooda in badan kama uusan soo shaqeynin waa taanina horeynaya والبدعوه عاد السبب aado ciidankana meesha uu jooga ha lagu hakiyo عاد السببنا هلا aado dadka Soomaaliyeedna hal la diyaariyo in la mideeyo oo awal hore ma mideysnayna wax badan baa inaga haleysnaaye dadkan Soomaaliyeed dib ha loogu soo naaqdo oo Mustafa kuraastana adigu isku taxday iyo maxaan ku yiraahdaa xilalkan aan dadka aan geeyin aad ku taxday iyo dadkii qadiyada iyo Soomaalinimada lahaa ee ku dagaalami lahaa ee ka garab hadli lahaa ee aad afka kaga taagan tahay dib horta ugu laabo 6 bilood inta dib isugu noqoto amarada Ethiopia ka imaadana aad dhinac iska dhigto adigu aad dadkaaga Soomaaliyeed midayso ilaa iyo feerfeer iyo maxaan ku yiraahdaa doolow iyo booqiya galaadi iyo mooyaale aad isu soo abaabusho oo ciidanka deegaanka dib loo abaabulo oo Soomaalinimo lagu hawlgeliyo oo wax Soomaali leedahay dadkan aad dhex keento oo jawaasiista aad dhinac iska dhigto marka kadib aan Ethiopia wajahno inta ka horeysana isdaadiyo aad sababana u dacdawood ciidankana meeshooda ku haki Soomaalidaadana dib ugu laabo waataanina horeyn aad baa maasiyay gulida been alif guul baa urjeynaa shacabka Soomaaliyeed maamulka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka Soomaalida ee xogga gaarka iyo laamihiisa kala duwan guul baa urjeynaa waana rajeynaynaa in xaqu mar walba guuleysanayo nabadgeliyo